annaga warbixin inaan gudbino soo ma ahayn marka hore riboodka hala keeno riboodka hala keenaa taaganta annaga dad weligood waraysi saxaafadaa siin jiray maxaa nooga dhigaysaa waa markii ugu horraysay ee shirkaddeena cid su'aal ay weydiisa annaga su'aalaha inaan ka jawaabno annaga ayay shaqadeena tahay ee adiga shaqadaada maahan warka in la bumbuniyo waa laga fiican yahay go'aan ganacsiyaanna sugaya dalabta maalgeliyayaashan dubay balankula leeyahay buga warka hoos ha loo dhigo laakiinse mudane kanaa annaga ilaa hadda wax caddeena maaragtay oo aan dadka shirkadda joogo mar rabaan ayaga inay wax qabtaan amaba dusha loo saaro annaga oo keliya soo saarayaal ah ayaa wax walba nala weydiinaya haa runtiis waaye diyaaradda haddii ay soo degi weyso waxaa lahaa qalabkeedaa halaysnaay haddii diyaaradda xoogaa luxmatana waxaa lahaa qaabka loo sameeyaa qaldan haddii raashinka ta xoogaa dhadhan yeelaha waxaa lahaa heerkurka diyaaradda waaye kaba soo qaada hadda aniga warbixin ayaan qorno oo waxaan dhahnay diyaaraddeena wax cilad haba yaraatee ma lahan laakiinse waxaad ogaataa sanduuqa madow markii la helo adiga waxaase ka walwalin inaa walwashidna maba loo baahnaba ila ma ahan midaas inuu aqbalaya isaga yaabaayna ranfiir maa ka hadlowsaa asaga wax oo go'aanka gaari kara haba yaraatee male guddigaa meeshaan fadhi iyagaana go'aan gaaraaya teeda kale adiga horta guddigaa inaad ka mid ahayn ma ogido annaga le wax walba go'aanka gaari karno adiga wax la isku xiriirinoosaa taas la soco dhegaysanad waaniyo ninkaas waxa waaye maamulka guud waa ninkaana usugu matalooya haddamaha taaga waa matalooya ma ay dhahdayna horta wax badan aan kuu sheegaa bagga koobaad waxaa ku qoran shirkadda in ay quusoosa si fiican u fiiri bagga saddexaadna asoo niikinooyaa ku qoran mar labaad horta aad kuu soo celiyo marnaba ma ogolaanaya mana oraya ogolaanne horta hore usuga aawe xagow jaraa ii sheega أصحابي قاعدين فضولية ما حد يقول عايز فضولية وقتي ما هنا نجا اسباب شيء أصحابي ما حجر ما حنقد المشن على السكان ولا هوسبو دعيا ما حقيقة كرتا مدسنا صدق اللي يحكونا فيت واي أباي حاول أنا وسيد ضعيف يسا أوصص ما إلى ذا مع السمين أمرك أوكي adigaad i raadinaysaa ilaa hadda anigana halkan ayaan kugu sugayaa waay kan hadalkan inaan dhahaa ilaa yaraanteeda waan sugaya waa daylag wanaagsan runaanta oo ku faraxsanahay waana maasan tahay kan waan qaadan kara halkaana waa ka tegi kare laakiin waxaan istiri shaqaalahada marka hore waa inaad u mahad celisaa haddii kale aqlaqdaray noqonaysaa mahadsan mar labaad shaqo wanaagsan adiga meesha ina imaadi ma bahem halkaan waa shirkadda aabbahay wakhtigan doonan imaanayaa
sweetie هلو معاني إيه وران ha macanta u soriya maxay tiri halow ما إسيه هذه جناه kuma maqlo naga aamus adiga يا أخي هالشو مثلك هذا البلد محاسن إسكجري جوسا ما إسينو ikaadi hal daqiiqa xool igu soo celi عضد كان مقلوي محي هنا معقول معها محاوي حلي الله بهنين تيش كان هرت محوق أمر والبو محاسمة يا هاد سيدانكو حالي عارنتان وحن وابنع كل جودة please baby please war baby da sheegaysa maxay tahayna hal xab ma kugu filnaawaysa adiga horta iyo kale inaan hadlo fursadiisii wax walbana ku sharaxaya marka hore halkaan ka timid midigta anigana bidixan ka soo socday kabadha dheer ee wadata kadibna way iga hor timid way igu soo dhacday kadib saxaafadda meesha timid waa la soo qoray beela tahay qaladka gashay xitaa saxaafadad ku eedeynaysa waxaas aniga ina igala dhaxsiis rabtaa soo maaha ma sida ma laakiin صعد يا قيس بيبسي mid moog tahayne adiga maanta in dhimanayaa leedahay laakiin ani ma ku dhahoya arrintaas saxaafadda lay ku dhahoosaa ku dhaha waxaasoo dhan laakiin waxaa la yaabanahay maxaa waa codkaana maqlooyo mitin kulanan ku jira macnaha sidan ka wadaa beelaa tahay guddiga kullin way kula ordooyin maaho waxaa rabta ma iska sheegaysa adi se ila ordayaan jirkooda maba dhisna nimankee fiiri iga ballanqaad galabtiina imaanayso arrintaa iga sasabaysid sorry baby galabta shirkaran leeya shirkaaga ha gubtaan ku dhah fiiri aniga wakhti fara badan ayaan haayaa marka xigtaad imaanaysidna lama filaan qurux badan ayaan kuu diyaarinayaa waa huwaa marka kale waxba ma iloobaysid maxaa tiri furiin codadanba kuu reeba ma arkin maya maxaa dhahday goormee iswatigiba waa soo noqaa haye qaali aad baan ugu xumaa si degdegan ku soo baxay midda kale heesii talaadada ku baratig garanayaad waan ku wada diyaariyey kafeygana meeshiisa si fiican ya cabcab asri ow beelaa tahaan ku dhahay laakiinse wakhtigii ma haysid wakhti walba inaan kaa adkaado waa laga fiican yahay yaaqae meerijaan waa la yaqaanaa laakiinse aniga cid i taqaana ma laha adigoo keliyaan kaa adka oo maanta dhan ku burbursanaya maxaa tiri macaani maxaasaan ii leedahay midda kale shirkan kuleelka anoo ku jiro ma nuucaddan iila hadlaysaa waqti iimahey sida ii dhehe miya war ma ogtahay qofkaa jeceshaa wakhtiga waa loo raadiyaaye wakhtiga miska imaado maanta dhan waxaa isleeyahay ninkaa muxuu saan uga hadlaya laakiin haddaa si fiican kuu ogaada bow anaa naagii warwareejinaysaa miya kadibna waa iskay difaacaysaa imaaa ku dhaa guriga anaa ku aqaanee naagaa ii wareejinay meelaha soo dhigana qalab saxaafadeed lehayna waxaan adiga meesha ka soo yeeshay ahayd halo halo hal daqiiqa fursadiisii halow xubi macan may maqlaysaa halow mudane naagtaa waa amar badanta anna waa iska dhiigi koleeya hadda waa baxaa waa ku soo naqaha amarkeeda inuu qaato waa ku qasban yahay keligiisa go'aan ma gaari karo manadra anaga wuuna dhegaysan jir marka hore hadalkeena qiimo ma laha miyaa ii sheega bal isaan iska sugaynaa qiimahan ka hayno ranfiir mar walba annaga dhib loo noo abuuraa laakiin idbaani nasiibkaada aad buu u wanaagsan yahay maxaa yeele maanta dhib ma wado ee dhibkagan rabaa inaan xalliyo diyaar muu tahay iya babaay waaba i qiimaysaane yaa idi heli kara waxaa iga xishootiina iska fadhiista nasta dabcan sanduuqan waa xasuusatay inaan la malaynaa xagaad ka soo heshay adiga adeerkana hore shaaruuqan wuxuu u yidhi wax si niyada haddaad u jeclaato dunida waxay kuga caawinaysaa saad ku heli lahayd shaygaas haye alxaasil dunidii ayaana caawisay sanduuqina gacantaan ku soo dhignay run ahaantii caddaynta intaysa dibadda u bixin ka hor gurigaanba dhigannaba shaqaalaha diidiya ka shaqeeya aad bay u wanaagsan yihiin mushaarkan loogu daro ayay mudan yihiin amaba waxaan isleeyahay qof ayaa bakshiis dhiibay soo sax maa
mase waa qaldanahay adiga ranviir arrintan waa arrin adag in la baaray u baahan tahay waa la baarayaa balse qorshaha halkaan isugu nimid marka hore waa inaan ka wada hadalnaa maxaa dhacay maxaana dhacay cadaadiska diyaaradda hoos u dhacay mudane moobtaa midaas mana xaqiijin kartaa dhulka aada ugu dhowna 36 kun oo fida meeshaan ku qoran qaabka ku dhacaysa marka mudane iska fiiri beeladadooda idil waxay isku sheegeen diyaaradda dhulka inay u jirtay 36 kun oo fiid haddana waxay ku dhacday buur 8 kun oo fiida say ku dhacda marka master farma beeladada haddaysan hurdaynin waxaan maxay ku dhici karaan cabirkaa qaldan waa saxan tahay baaritaan dheer markii aan sameeyey sannadii la soo dhaafay waxaan ogaaday meeshii aan agabka ka qaadan jirin aan ka qaadano kambelikan aan ka qaadan jirnay taasna waxaan ku heli jirnay raqiis ganacsi wanaagsan ayaan samaynay laakiin ma is weydiin ganacsigaasaan samaynay dad fara badan inay ku baaba'ayeen qaladka innagaa iska leh dad fara badan ayaa darteen u dhintay sidaa darteed kabacdi duulmaadida noo diyaarsanoo idil waan joojinaynaa qolada hawadana ha loo sheega magdhow haddii doonayaan waan siinaynaa sidee ku joojihayna uluka yaqay wax macquul leh maaha haddee raaw baabaan anagii diyaaraddeenu weyneed xaaladda ku sugantaa ma ogtiin adinka hal rikaab haddii la baajiyo qiimaha dhan hoos ayuu u dhacayaa 300 shirkan hoos u dhacay annaga dhan waa baaba'eena taas macquul maahan makaa yeelahay dadka dhinta magdhow leh run waay taas aan rabaa in la sameeyo cigaarkeyga aniga tamiyo kow sano jire marka ugu horeysa iskoolkiisa dalxiis u wada waay aniga cadaaladaan rabaa saan ku noolaa ma karo cigaarkay inaagta soo aroosi todoba inay aadaanay u baxeen lamadood maxaa todoba ugu yaab lagu diimiyey ana keligee ii tageen hadda maxaan ka noolaahaa marka waayahe nadwaani wiilkaaga diyaaraddan hadduu saarnaalaha magdhow imisaad qaadan lahayd adare dhegaysaqaan islaantan oynaysa ma ka dhaadhicin karta shirkadda sheerka aad ku leedahay inay ka qiimo badan tahay gabadha nolosheeda iyo wiilka ay dhashay master samiir sannadkiiayna soo dhaafnay aabbaha ayaa geerida soo maa imise bilyan ayaa kuu beddeli kartaa shirkadda duulimaadyada adidya raaj hal qof ayaa mabaadidiisa ku dhisay mabaadidaasna haddaysan soconayn shirkaddan shaqadeedana ma sii soconayso malgeliyaasha dubay anigaa la hadlaaya qofka i raacaya afkiisa ma kala furi karo anigoo keliya ayaa hadlaya warbaahintana anaa war u diyaarinaya adeer mahallaa buur tikid nadiifa oo abniha ma iiga diyaar garayn kartaa adoo raalliya waxay ii qabaan dadkan ma sheegi karo laakiin abnigooda muhiim uu yahay shirkadda falcon adeer faylashooda ma ii soo diri kartaa heshiiskayga la dhexeeyan ka wadaa aha warbixinta ugu dambaysa idila wadaagayaa qofka heshiiskan soo dhammeeyey ballan waxaan ku qaaday ma dhammaystiraayo dubayaa noo balana hadday sidaas tahay safarkayga ii fuday dhoscom aniga tigid mid kaga dalbaana ii sheega ob akshinkan soo samaynaa iga khasaari rabay ma soconaa ukaad haldaqiiqo waa maxay waxaan sidaa xu jiraan kaale shaqaalahan istaafka aniga lacagta bilash baa ku siinaana ii sheeg mudan waa isku daynan iga aamusoriya iska raalhaw hay mudane horey muu dhacday nin shirkad dhan maamulayo inuu burcad la dagaala asiga ilaa goor ma soconayan waxaan ilaa kursiga aad kaga fariisanayso yab waa runtii wiilkayga maxaad ii fahmi lahayd awow adigaan ii fahmayn yaranteedu waa xasuustaaan u malaynaa markaan baaskiilka qaata abbay muxuu samayn jiray baaskiilka ayuu silsiladkaaga xiri jira asaga laakiinse baaskiilka kale ee shaqaalaha ay lahaayeen ayaad adiga xadi jirtay kadibna waad ku soo wareegi jirtay soo saas maaha dabcan haa wiilkaygii isku day inaad fahmi iga dhaaf ruum royoo kale ha ila hadlin
waaw waxaana laga dhahaa mishin waa lagu dagaalami karaa si qalbiyana ayuu u naqshaday aabbahay diyaaraddan aabbaha wuxuu ahaa beelad wanaagsan runtii sidoo kalena wuxuu ahaa qof wanaagsan isaga fiiri hadda nin shaqaalaha ayuu walaalkiis ka dhigtay maxaa ku hadlaysaa awow walaalkii mar walba wuxuu dhihi jiray shirkaddan adiida daraaj waxay noqonaysaa shirkadaha dunida midda ugu wanaagsan ayay noqonaysaa caadi maaha ninkaas waan xasuustaa runtii hadduu maanta joogi lahaa nimankaan sida mukalaan u qayl lahayn siad u hadlaysaa ilmaha markii la maamulayo maamulka uma baahna ee kaabagalaaska ku filan ballan waxaan kaa qaadayaa sharafta aabbahay inaan kor u qaado waan ogaa wiilkaygii aniga dunida hal walaal oo keliyan ku qabay balse maanta ma joogo oo walaalkay u dhintay balse intuusan dhiman ka hor anigoo wiilla'aan ahaa ayuu hal wiil dunida korkeeda iiga tegey awoowe ma waxaad doonaysaa sidaan u duulaya inaad ogaato intaaniguma filna ee hawadan ballaari waxaan suuragalahayn waa yaa dhihi jir ma xasuustaa aabbahay waana ka hele wiilkaygii adiga hadda shaqadaas soo dhammayso anigana mandirka ayaan duco kuu sii qabanaya awalanba kaa sugan xafladaro qamri iyo waxaas laga isticmaalaa inay dhigto maxaa dhacay ma mar kale ayaa dagaal dhacay sawirkayga journaalka haddii lagu soo daawacay qalad miyaan leeyahay wax qalada malaysa aan arka kolley ha eedin wiil yaroo qurux badan haddii journaalka lagu soo sawirin oday waayeela maa lagu soo sawiri lahaa waa maya maya maysaasaa dhihin iguma kalsoona qoftaas sasabano maxaa dhacay adiga la iisoo sasab adaa isfahmaysiine runta ma kuu sheegaa keligayaa baxay waan la socdaa midaas ilaan mukulaalaana qaylinaya qof ilaalay ayay rabaan or adiga eedada kale warkuu fahmee ku jeclayaa midda kale awoowe laba gabdhoodoo qurux badan ayaa halkaas igu sugaya ma garatay kutuleetiga laftan muxuu ka dhex samaynaa orad wiilkaygii ii baashaa laakiinse iska yareeyaa habasanina kun haddii kala dhow dhib weynaa la kulmaysaa ma fahantee mayla kaftamaysaa ma xuma ma xuma idreal xasil waa kuu daci wiilkaygii mudana qabso soco wiilkaygii soco yees gabdha waa idin salaamay kaa qaadnay keena kaa qaaday meel fiican hala dhigayaa ma soo dahay dabcan wax yar lay soo daahday ma badneen waqtiga loo baahnaayaa nimid hoo mudane cabitaankaaga isfudaaniya laakiin taas mac salaamaa laga wadaa isku daygaga ma diidanta mudane bal raajinaa khayaantid ma isku dayoosaa gabdhahoo dhan waxay iga shakisan yihiin maanta ciyaartan hadda sanado badan ee socotaa mis dhahde adigaba qadiimiyaa noqota maclimadda een ma og tahayne diyaaraddan la'aanteeda kafee xataa kuma samaysan kartid dhegeyso daciifnimadeeda ka faa'iidaysanya aabbaha qalinkiis siduu ahaa wuu fiican yahaa aabbahay 3 marna waa i weydiisay maxaa dhacay maya lacagteeda gurina ku dhisatay in kalan ku weydiinay wax weyn maha taas adiga marnaba isma bedelaysid hadda waa baxa kabtankaa soo fiirinaya maxuma bay hal mid iga dhegayso oo liifkaygana doonanaya dadka biyo cabay laayihiin annagana ilaa hadda diyaaraddaa barkeed noogu samaysanta maxay dhahdeen mamay waxba waad qurux badanta waa mahadsan tahay igaraal noq mudane okay dukumentiyaashaana dalbata ma ahano
beautiful thank you adigaa mudan galab wanaagsan mudane kursigaaga waa inaad ku laabataa weliba aa fadhiisataa hadda waxaan u baahnaa diyaaradda aniga inaan duulino waa socdaa kursigii dhinaciisan u socdaa captain kursigayga waan ku fadhiyaa amar kaloo siinaysa miyaa jira bal ii sheeg maanta ima aadan soo salaamin xoogaa mushaarka ma lagaa soo daahiyey waa midaan la yaabanaha maya mudane diyaaradda ka soo daaday saas daraaddeedaa u dadegsannahay xawaaraha diyaaradda yaray maxaa yeele diyaaradaha ayaamahan qaraxay keeneen maya mudane midaas ma dhici doonto haddeeba diyaaradda duusha anigaaba ku imaanaya haddaad ii timaado yaa wadaya diyaaradda waan kula kaftamay wax kale miyaad ii haysaa soonkaaga xidho adigoo maadsan waxaa naqsiyaa kan mister malhodra ku soo dhawaaw diyaaradda phoenix fadlan adigoo raaliya dhagahaagana amaahi waxaan kaa codsanaynaa suunka inaad xirato sidoo kale buugga badbaadada hortaada ayuu ku jiraa tan kale waxaan kaaga baahanahay haddii aad oksijiin iyo waxaas u baahatane korkaaga ayuu suran yahay igaraale noqo mudane cabitaankaaga ma qaadi karaa diyaaraddu way ka cirib tahay shaqada cabitaanka marnaba laguma cabay sweetheart mar kale galab wanaagsan mudane malhotra aniga saniyal ayaan ahay waxaan kugu wargelinayaa haddaynaan hawada u sara kici doonno wax walbo elektroniga haysatay teleefon kombyutar waa inaad damisaa ha ka walwalin hawada dubay waxaa ku beegannahay 9 saac iyo bar saacadu markay taagan tahay
كابتن كابتن سانيال شرما ما يمغشان ميا هلو ما جواب يسيلاين لكن كابتن هلو صباح الموان اكسنه ايه جواب فيلم ما يمغشني هلو waxaa lagu tarjumay كابتن astaan films कुछ याद की moogtahay la'aantay kafee xitaa ma samaysan kartid
halkan fiiriha ayaa soo laabtay waanagaa shaqadan labadiin inaa qabateen ilaan diyaaradda mar hadday duusho qof ma soo kori karto hadduusan tom cruise ahayn hawshan saa u qaba laheedeenna lacag fara badan ayaad ku soo qaadateen lacagta markaa qaataan kadib sharma adiga doonkuu qaasa gadanaysaa sanya adigana barasiila gabdho qurux badan qamri kula dhex cabaysaa waa intaas lacagta qiimahaas oo keliya ayay leedahay xaggiina si kale haddaan u fiiri arrintan waxaa ka dambeeyey faraadkii 815 sirtiisi inaan bannaanka keena dadkii diiday waa sidaan qiyaasayo dabcan waxaas wax weyn maaha qof kastaa qiyaasi kara si haddii loo fiiriyo laakiin maxaa samayseen gabdhihii masaakiinta ahaa ayaa disheen kadibnana ay sii dayseen hataa shaqaydii harsantaa u bilaabaysaan ii sheega marka maxaad iga dalbanaysaan oon idiin qabtaa codsadan maxaa idiin qabtaa hadla gacan fudud maad hadashaan waqti ma hayo halow halow hadla yaaqi waan ogahay inaad imaqlaysaan midda kale noloshiina idiin fududeeyo shirkad waxaan leeyahay 500 bilyan oo dollar waadna dareemi kartaan lacagtaas tariskeeda iyo inta ibro ku jirto wax codsada maxaa idin siiyaa nolosheeda imise idinkugu fadhisaa ma hadashaan hadlano hadla yaqay ma hadashaan maxaa rabtaan ii sheeg waxaad codsanaysaan lacag maad rabtaan mase shirkadda mase waa idin shumina sorry war maa nala hadashaan halow ha laga yaabo cod inuu ku furmayo waa tareegarayna ii kaadi felix iga fur felix codkaaga ma shaqeyn simsim isfurno waqti ma hena yaqif simsim please simsim isfur yaqi maxasbe bes hagaag neef qaado ayardag muxuma waa gartay markaan dubay tagno burj khaliifaan tagaynaa waa wada sharaabaynaa arrintaana si deganaanaan ku dhammaynaynaa sayadana tahay sooma wanaagsana haye waa gartay burj khaliif warnaa idinkadaa marka waayahay ha ilaa hadlano waxaa la idhaa yaqi albaabka fura albaabka maxaad la aamusantay naga fura yaqa bilaalow ميدي هلو يا اخي خفت تلفكي قبنا يا ملامي قوي يا اخي تلفونك قفصك عي جواب يا ملامي يا اخي كوك من التلقى حتى تلفك ما قبنا قفت لفكي قبنا يا ملامي تقصد يا اخي غلطه
بس وين قلت اوكي حقك وانا ما تمرك اوكي وهم الصمينيو واوري بيلوتك ديارة سيدا انه قد قدين كرماني قامودي هدي هذا اللي هذا يقف هذا هنا رأس السوق السما Martin. Good afternoon, mudanayaal iyo marwooyin. Waa maalin qurux badan, neefta jiida, dareeshada bannaankana. Soo istaaga dhammaantiin, si aad u aragtaan cirka quruxdiisa iyo jooga siduu yahay. Sunna xirataan lama baahna, maxaa yeelay diyaaradda halkan ay dhex taagan tahay. Waa anaga nasiib xumadeenna. باشا حفلة ديكتا اسكا شرابة هلا بودبودو والورك هلا اسكا دافا اللي حارتي على سيدا نغطي وعانا قلت سينا آليا ايه الشرما زنداني هذا نزاما هرجني تماري صانيا حنادي استقرن كما قاضي منكو عياري ورناو كرمي ثانية ما أي كلا تورس ديار ده وقت قدينا إزاي يا أخي الباب كي يقفل بليز سمي جلس كان واحد جوج وليم وين تجي مامي فهمت هذه الشيء قف أنت أم الشيء إن أديني نبتان إنه أم الشيء هلا يقفل الباب كان واحد جوجي بليز فين ويا ثانية مصبح السماء وهي أنا السكلة
waan ku salaama ka caliso waxay la tahay fariintan midii ugu dambaysay inay tahay markaad idhaysi maantaad dhimanaysaa ma aqan waxa kaa keenay way fiicnaa lahayd fariintaada hal jawaab inaan u helo way fiicnaa lahayd dacwooyinka badan ee aad qabto mid ka mid ah inaan kaaga jawaabi karo fariintaan inay ku soo gaarayso iyo in kale aniga runtii war uma hayo laakiin haddii fariintan ku soo gaarto waa ku baryaa qof kale hayga dhex raadin maxaa yeelay qof sida anigoo kale u qurux badan oo aqli badan ma helaysid ha isku daalin aryaa ranviir manotrow ranviir manotrihii iska lahay shirkadda diyaaradaha ee aditya raaj kalsoonidii iyo mabaadi'dii oo aabbihiisa aditya raaj uu ka dhintay oo u yahay tusaale mahan ku dhex muuqda laakiin waxaan aad ugu xumahay inaan maanta idiin sheego iyaarkaas inay maanta diyaarad la qaraxday uu dhintay adduunka xaadirku maaha muggan baaritaan sameyn aan waxaan ku ogaanay inuu sameeyey heshiisyo musuqmaasuq ah taasoo shirkaddeena hoosu dhac ku riday waxayna sababtay duulimaadkii 815 inay musiibo ku dhacdo tilaabadaas uu qaada horta hore shirkaddoo keliya khasaare kuma dhic dad badan naftoodu u baasbaxay shirkadda aditya raaj anigoo matalaya shaqaalaheedoo idin waxaan raaligelin buuxda siina dadkay musiibadda dhacda saamaysay weliba waxaa isku daya dadkaas magdhow in aan gacanta ka saaro dadka noolnoolna cafisaan weyddiisaha barowadayda ka war aqodbadan waxaan ku talagalay shir saxaafadeed dubay aan ku qaban raba ka war ma ku qanciyey aniga ma sheegi karo inaad daawanaysa in kale ma sheegi kara balse waa fiirsanay laakiin anaa og waa fiirsahee sababto ah waa madax adag tahay aabbahaa oo kalaa tahay aabbahaa sahalkuma dhimanaysa waa ku ogahay adiga waxaada tiri shirkaddan inaad kartidiisa iyo raganimadiisa usuga keligiisa ku sameeyey keligiisa adii tiri keligiisa oo mukaxaan
nacalla keligiisa ku yaal ariga mabaadiida kaadi soo toray xay ahaayeen ha ama filinka diiwaanad soo fiirsata xale shirkay qabanayeen sheeka filmaad ka dhigta ka war adooga runtii maraan kuu sheega madaxtinimadooha unuka waa shirkaddan waxa shiday unukaa keena kicinna adooga keligiis waxuu qaban karay shirkadda gudaheeda qolkeentu isku soo xiro iska qalqaylin jiray sida nin waalan oo kale asaad leedahay isagaa kiciye ka war maantana adigaba xadka lagugu talagala ka tagtay kangili kangabee kangiliyaad keentay arkanday adiga waxaad la yaaban tahay barnaamijkaasaan ku diyaariyey soo maha anaa kuu sheegaya adigaa wareerka badiyey bugaad wareerka badisay aniga hal baylood oo qataro qamarjiyaan raadiyey se ugu bedela cabitaankaad adduunku ugu jecesha markuu ugu horeysanayo uu ka bilaabo mataqaanaa bayloodkii qoortuu ka siibay isgaarsiintii oo dhan uu inka xiray aw diyaaraddii mahay ku socota dhan uu ka leexshay aasoo u daqaldan aadii ka war diyaaraddana awtobaaledka uu u fura ka warne shaqaalihii diyaaradda saarnaydna waa qaarijiyey sa ay adiga garabka u siina ka war soo aruurshay ka war asoo adiga kaliga maha kaaga soo tegay diyaaraddaada inay afduuban tahay maaho waa dhume adiga ma ingiriisaad noo maraysa onu ka lewa adiga xogoo weyn fikir wax magag badan fikir waxaan rabay diyaaradda adoogaa inaan ku saaro 30 kunoo fiid mayl u jirta dhulka inaan korkeeda kugu duba ka war midda kale maamahan waxaa baa soo caanbaxda diyaaradaha inay iska lumaan ka war awalba kursiga ninka lagu talagala aniga u ahaa anaana ku fadhiisanahay hadda ka war hal lugu waxaa saaraa qabriga adoogahan saara hal lugna waxaa saara akhbaartaada oo lama helaan aan ka dhiga ka war soo jaqa wuuma hanuunaad mahadsantahay mahadsanid aranviro xajadan oo kale waa dhacdaa nagu qaad waa islaamnakii
just lixda ay soo dhacday markuu Bombay ka baxayay sidoo kale mudane wax walba normal ay ahaayeen dadka diyaaradda raacay anaga waan baarnay ilaa haddana baaritaan ayaan ku haynaa tan kale mudane ilaa hadda fariin emergency ah nooma imaanin anagan ilaa hadda caddeena raadinona iyo baaritaan badan oo ku haynaa diyaaradana ma ku muuqataa adiga ma ku muuqataa maya mudane way heshiikooyinka harqiista orod ula tag dadka ka sareeyo mudan anaga baaritaanka hadda aawadno tiimka ugu khatarsan ayaan u darnay war heedha diyaaradda ugu muhiimsanee dunida ayaa hawadiina lagu waayey shaqaalahagana sidaan iska fidhan marka sanada shaqaalaha ku kalsoonaay waxaaba kocma dadkan adiga rajadina ka leedahay weli gabaray maxaa kuu muuqdo ood aragtay ilaa hadda salaamu calaykum mudane diyaaraddaadii oo Bombay ka timid fariimihii kuu reebta ugu dambaysay mudan waa tan adoo raalli dhegayso diyaaradda Phoenix 261 Alpha Control kan u gudbinayna hawada Hindi baan ka bixirnaa 1200 dhanka waqooyi 600 dhanka bari altitude kan waxa waa 50 feet xawaaraha diyaaraddan waa 500 knoot 3 daqiiqo kadib isgaarsiinteena way go'i doontaa waan maqalnay 40,000 oo feet diyaaraddiina waa inay ku socotaa duway markaad ku dhawaataan 25 dhanka waqooyi 55 degree dhanka bari marka aad maraysaan waa inaad la hadashaan waqtigaad imaan doontaana waa 9 saac bar waa idinla soo xiriiri doonaa intaanu kaliya miya ها مدني جدولك وحو ها ساعد كور إن أخبار كهلنا إلا هذا لك أخبار كمهلين والله أنا هاي ما نقال حكود عدد كاس dhegeysta waxaan u baahanahay dadkii diyaaradda shaqaalaha ka ahaa iyo dadkii raacay aqoonsiyadooda oo dhan sida uu dhaqsiya badan waa in gacanta lagu soo geliya aniga okay diyaar waay qof walboo diyaaraddas raaci feerkiisa halay keeno midda kale waxaan rabaa intaan diyaaraddas ka helayno arrimaheeda bannaanka inay u baxdanba doonayo ma fahanteen hala qariyo okay diyaar waay ريدي قدام بيسكواس ماهين ونولا هولي قولوا فان عيارة ما حيا العاج سندري ميا وهي أرنت قرف قادم مغلية حتى مع السميلها محاسم ميا أدري لكن خرشان وكهلابي فيلم كان وحلو حتى مع السميلها فيلم كافو يدري كري بحبض يقول فكري مدي يقول لي كري بمو كاني كري قفض وبم كدل اسكو قرحي موت لكن سينا بدن ما يقول سنينيا وفهم كرا عدوتني مدى waxa ay tahay meesha ka bilaabanaysa intaba cadowtinimada macnaheedu waa dareemi karaa sida shawle iyo wembley doonayo macna waxyaabahaas oo dhan laakiin diyaarad adeerkay weydii qiimaha diyaaradda ay ku fadhisay hadduu yaqaanay haddii kale
khudbada sana dheereed waa dheereed maxaa liigu sheegay pilot diyaaradda inuusan saarnayn yaa igu kacinaya diyaaradda waa kaas diyaaraddii awada haabihiisa marka ciil yaan hadlaa diyaaraddeena waxay ka soo kacday Bombay waxayna u dhaqaaqday dhinaca Dubai halkan markay marayso waa markii ugu dambeysay ee Felixka ay soo dirtay meeshana waa meesha raadaarka ay kaga baxday oo akhbaarteeda dhan ugu waayay hadday wax walba saxnaa lahaayeen diyaaraddeena sidaan ay u socon lahayd Dubai ayayna tegi lahayd balse qalad weyn ayaa jiro Bombay iyo Dubai waxa u dhexeeya kumanaan taawar hadday baasha meesha mari lahayd waxaad ogaatiin taawaradas mid ka mid ah ayaa wax ka duubi lahaa balse dhinacaas maba aysa aadin taas macnaheedu waxa weeye diyaaraddeena badda ayay aaday halkaas ay u dhaqaajisay waddada ayay ka baxday dhinaca badda ayayna aaday wax walba Felixka ku soo dhacayna dhinacan iyo dhinacan halka u dhaxaysa ay ku soo dhacayeen mudane soo daa horta diyaaradda unaka markay baaritaan ku sameynaya wax walba oo dhammaystirnaayeen diyaaraddaas wax ka halaysnaa male meesha korontada waxa dhanaan ku dhahay waa cusbaayeen okay ahaayeen xitaa mudane qaybta emergency ee diyaaradda way fiicneed ninka diyaaradda ilaalinaya wuxuu noo sheegay markii diyaaradda duulaysay inay aad u fiicneed balse 15 daqiiqo kadib ee isbedeshay kontaroolkana anaga marka hore ma noo shaqaynaynin mideeda kale wax laga yaabaa raadeerka hawada dhexdeeda markay maraysay inuu ka lumay sababtoo isbedelka wuxuu dhacaa 5 ilaa 10 sekin baylotkana kabtan sanjay saniya BK Sharma la socdaa waxa walbana video camera ka fiirina waa kana aku daro Georgie kabtan saniya qoyskiisa ayuu Phoenix kula soo dalxiisaya asaga sawirkaana waxaa la soo dhigay 4 saac ka hor weliba waqtigii Felix hawada ay gelaysay marka khiyaari waxaad ii sheegaa diyaaraddan ayada lama weyn ee waa la qariyey
ducada bam kale maa la aqbalaa waa yaabana tan maxaa ugu ducayste bambadii ugu wareejiya haddaan ku ducaysana waa hilaamia ducooyin kaloo fara badanaa jira yaqay waa lii rumay lahaa ayar isdeji toos u fiiri bamka toos fiilada raac weliba midda gariijaha mase cagaarta may gariijaha waay may cagaarta sugteen raaca marka ma kala aqaan waxaan waa ku wareeray laga yaabay fiilooyinkii inay islahaadaan laakiin gasaca sababta gudud looga soo dhiga maxay tahay dhib badan asagoo isku daya may mau dhowaanaya jay fayruu saacan hadday joogi lahaayeen shilnay tuuri lahayen oo ku kala bixi lahaayeenno filimaanta jaceylka maxaan ka doonay agshinka haddaan fiirsalaa saacan bubkaan xalaa uu keeni lahaa laakiin anaa isku ciyaarano waxaan sameeya sug isku daya intee ka bilaabaa suga lisdejina laakiin familkaygan hoosta ka geli doonaa umalaynaa चुप हो जा चुप raadaad finiska markii la waaye kadib 25 daqiiqo military Soomaaliya raadalkood waxa soo qabtay diyaarad la aqoonsan karin waxa isku dayay imtixaan diyaarad hawo ku jirto in la soo halin laakiin diyaarad hawada ka baxday Soomaaliya macnaha aniga qiyaastii runtii waxay ahayd mid mudana laba xaqiijin diyaaradda inuu yahay in kale aad baan ugu xumahay waayay waxay dhama samayseen haa mudane kabtan Saniel ayaan la hadalnay isagana shaqada uu ku soo laabtay hadda wax walba sida la rabay ayaa loo xalinayaa mudane reportkiisuna waa kana uu soo gudbiyay waxa uu fiiray diyaaradda Phoenix pilotka joogtaa waa kana pilot kalena waa kansalne emailkan xafiiskana ka imaadne waxa walba information meesha ka helnay isla saaka dacwada ayuu soo gudbiyay waliba xafiiska ayuu soo gudbiyay wuxuuna sheegay abyss of pilot in la laayahay kadibna ID card fars ayaa loo sameeyay ayadoo la xaqiijinaha in amarkeeda mudan waxa waay aan qiyaas bal hal mar aniga amarka xafiiskeena ayuu ka yimsan u maleynaa Soomaan mudane laakiin mudan hamida jiro ay maxay tahay mid kale ii sheeg bal mudan mid kale jid maxay taqaanaa security airport mid la sameeyay laba nin ka maqnaa wili maanta soo baaray way bal horta hal mid ii sheeg beeloodka magaciisa maxuu ahaa horta asaga BK Sharma oo asaga ma oga miyaa beeloodka la socday kabtan saana inuusan ahayn duulimaadkiisa ugu horeeyay waay mudane arintan madaxa sare wax walba oo sheeganaa ee ka xalin karaan ku xamalin maya diyaaradan waa afduubtay balse qofkii afduubtay amaba dadkii afduubtay waxay sugayaan natiijo anaga ma doonino in ay wax ogaadaan ayaga ilaa anaga wax ka ogaanayno cidna iyo waxbaan loo sheegin hadalkayga ma fahanteen wax walba hala qariyo maamulka ma imaaday haa mudane 20 daqiiqo kadib way imaana maangeliyaas way hadda baxa balse hal mid ii sameeya inta aniga aan ka imaanayo shirkiyaan la bilaabin tawakkal waay
نقص يا غد نقص. نقص بوبسي يا أخي بوبسي. maanta yaa akhi nin awal in laga dhigaa la rabo soma.
أغلي كان وين فكرته؟ ميدي هلو مالي مقلا قف عدكيغا مقلا يا مجرى الى الهمله يسا جوابه warbixino ku saabsan diyaarad duulaysa ayaa baraha internetka oo dhan qabsaday taasoo weliba olol badan uu ka baxayay waxaa la helay fiidiyoyaal diyaaraddaas ay kasoo dhex muuqanayso waxaana duubay inan reer Dubai ah diyaaraddii markaanu eegnay kadib waxaanu ogaanay inaysan ahayn diyaaraddan midda rakaabka qaada ay tahay mid qaas loo leeyahay fiidiyogana hadda arkaysaan waxaa muujinaya dadkii diyaaradda saarnaa fursado yar inay ku badbaadayeen dadka la shaqaynaya diyaaraddaas ee Abu Dhabi joogana ilaa iyo hadda waxa warbixina ay ka heleen haba yaraatee ma jirto waxa inay isku dayaan waqtigan inay la xiriiraan dadka saaran diyaaraddaas laakiin meel diyaaraddaas ay ku qaraxday iyo meel ay ku dambaysay ilaa hadda lama helin أنت سيدة أبو دبي هذا اللحظة ما عاد سوقسا مدن إلى هذا دقيقة مقولتها مدن رفيق haddaad rabto inaad aragto qaabka u duulaya isaga orod oo cirka ku weli sida u duulayna subaarag adiga wiilkaygii si fiican ugu maqlaa xafladaygan wiilkaygii ma baashaalowsa warkiisii barinta xukuumada xaflad beel awowgiis anna xareerugaan marooya libaaxa tahay adeerka qorshe wanaagsan oo degay laakiin ducada markaan keligii ma asaga xataa waa lagu daraa iwaalay taas taasiisa anaa dhigayaan kudhaasna ducadana waa laga qabgelinaa waana sii badan tahay meeshaan hadda 3 maydaa saaran haddaad imaanayd 4 ku noqon lahayd warka badan iga dhaaf kowdhe qof i caawiyo agtaada ma jooga ilaa hadal adeer waqtiga maxaad iga luminaysaa ma ii jawaabtid
maxaad la fadhiisaa waa ku baryaa caawi oo badbaadi wiilka asalaamu calaykum maxaan kuu sameeyaa maruu ducayii salaan halkan uma taagnin ee nafteeda isku day inay badbaadiso xalaad keento please mudane midaan ku weydiina adiga shuud ma kuu muuqdaa haa shuudaan ku dhahay runay ka tahay haaruna iga tahay ma kuu muuqdaa may ani waxyaabaan hadda kama hadli kara hal xaasan leeya kowdhe hay qasbin ee xaals maxaa sameeyaa wiilkayga baarashuuda ka wada caa ku hel adiga baarashuuda danaysa marrayso ma boodeen adinka ma hadal idinka sugidaa iyo jawaabo wiilkaygii out eject taaba balorta see u hadlaysaa awowe magaalaan kor duulayaa hal qof sida loo badbaadiyey ma kumanaan qofaa loo dili karaa aniga iga farqiga noo dhexeey muxuu yahay awowe ranfiir muhiim ayaad noo tahay wiilkaygii warkaas ka bax kowdhe diyaaradda in la dejiya ayaan doonayaa waa inaad qorshe keentaa sidaan u dejiyaa kadib gabadha shukaasa haddii aad doonayso caawi oo ku baryaa wax la sameeya dhaqso baabsi gabadha hadalkeeda iska daa mudane i dhegaysa marka hore waa inaad daarataa tarasar foofarka si aan anaka kuu dejino taas muhiim waaya qimudana daaro kalima way tusi bliis yaqi caawi waa ware wiilkan dhib badan ayaa qadeer tartiib aniga diyaaradda ma duuliyo waan sameeyaa oo keliya si tartiiba igu sharax boorka hortaada ka muuqdo dhinaca midig batoon ku yaal waa ku qasbantahay inaad taabato taaba yaaqi beela waaye hadda diyaaradda online waaye mudana beelaad tahay waxaa noolaga baahanyaa diyaaradda leebarkeeda inaan saxno hadda baalka midig waa inaad 15 digri geysaa waxaa lagaa rabaa SB-gana 110 waa inaad geysaa batoonkana gedi kadibna marshada tartiib hore u wadiyaa ilaa hadda kuma fahmaayo istaaji deganaan yaqafaankaaga ma aqaan diyaaradda kor xawaareedu u socdaa waana qarxi doontaa kafta kuma jirnaa kudha maxaa kaa qaldan adiga dabcan xilila kaftama ma joogno kowdhe si tartiiba waxay igu fahansiisiya diyaaradda u dejiye ujeedaa marshada weyn oo dhexda ku taala adiga ha midda weyn soma oo madow u dhalaalaysa ha marshada weynta waxaan kaa rabaa tartiib gadaal inaa u soo celisid hadda waxaa lagaa rabaa 120 nood inaad geysid hadalkayga ma fahantay dhaqso shaashada geey afar shaashad ayaa meeshan iga muuqato waa midee maxaan ku sameeyaa yaa qibidda wareegga badan leh ma midda maabkii matoorada kuu muujinaysa mase waa mid kale buugga ha ka raadin kuma qornay muhiimadda waa inaad cabirtaa muhiimadda kaadan hadda dhaqso yaa qistiji hadda qaybta dhexe waxaa lagaa rabaa tartiib inaa u wado riixaya waan wadaa soo maaragtid waan wada weli waan riixaya hadda waxaan kaa rabaa inaad ka raadiso qaybta dhexe kalar buluug iyo kalar kafee ka raadi buluug ima muuqdo kafayna sidoo kale ma arko maxaa sameeyoo kale ii sheeg in la helo waa muhiim kafeega haaf ee ama buluug oo haafa tartiib u kaxeeyaa ku dhahay waan ku garto waan riixaya waan wadaa haye okay weli wuu noqday beela waa haddaa heshada waxaan kaa rabaa marshada tartiib inaa uga foqdo midda kaleeta lambaraa kuu soo yeerinayaa lambarkaas waxaa rabaa inaad geliso micnahaygu way qarxaysaa ayaan ku dhahay kale adigu wax ma ii sharaxaysaa mase waa cabsi gelinaysaa waa kuu sheegayaa leh diyaaradda teeda ma ogi laakiin tanaaba idiraysaba ka hor jaryaan adiga sidee kaa noqotayna horumarisaan ku siinaa mao kadibna anaa alaabta dhaqdhaqaay taas macquul maaha kanaa hadduu ogaada waxaad ogaataa aniga in aan baxar galaay kanaana nin waxyaaba qaar yeelaay maba maya xooga kamagaad ka hadlaysa waa beeloodka waa lacagas iga dalbahooya yaa kunturadan ku siisaa hal qof u disho ma dadka saanad u dishaa wax dilan ku dhaasa iyaarkan dil ku dhaaba warkiisa dadka dhex wareegoya saadar tamuga waaba nool yahay ninka ma dhimanne uga sadaqta lacag aan ku sii lacag waxaan ku dhiibaa si la adil lagu qasbay in la nacla kugu yaalay mugdan baa soo ween
kana ana horaan kuugu sheegay arrintan waa arrin aad iyo aad u yar dhibaatadan sidaan u weyn adiga inaa abuurtid maba ahaanbo hal sanduuq madoobaad xallin weysa arrintiisa sadarta aniga shaqaynaad igala hadasha ma biyo la hadli karta balaayo afka hor u badane hawlwelin adiga ilaa hadda rajaa jirtay akhi saas darteeda oo asiga wuxuu u dalbanaya gurmad teeda kale qaraxaas qof kama badbaadi karo aryaa waqtiga fiiri dabaayahu qaraxa 20 daqiiqo ka hor u dhacay iyaarkaan ma sahlan dilkiisa inuu dhintaan rabaa warkiisa mugdan inuu soo gaaro maran kawiya ninka mudane maalgeliyaashu way imaadeen diyaarta waa aragnaa waa ujeedii mayno beelo meesheeda ku soctaa beelo hay maxaa sugaysay sida uu dhaqsiyaha badan gurmadka qaybta saddexaad ha la geeyo socda adeerka adigoo ku warwala ha walwalo waaba loo baahan yahay aan soo gaaro waa ku baryaa isku day diyaaradda inaad soo dejisa adiga isku daygaas wuu imaanayaa master ranfir diyaaradda ranwayga ayay ku socotaa markaa isku dayayaa si kaleeta inaad u isticmaashid waa ku baryaa tartiib u soo deji diyaaradda sanada ilaadis jeceylaanba kuu qaadaa iska dhagatir xawaaraha 8 nootis geeyaa ku dhahay qaybta dhex waxaa ku taalla marshe madow ah waxaa geysaa 25 digriis hadda leebalka isticmaal si diyaaradda iskugu diyaarisa inay degato wax yar kadibna diyaaradda degasho ayay isku diyaarinaysaa dhaqso وجبه ما كسر علي كرتا ما دحي كرتا دياردان قلبك لوgu soo degi lahaa hadda ma lahan walaal yahanaysan maxaa dhahday ya abo madane idageyso adiga hadda hayweega ma ku soo degi kartidaan ku dhaw waxa sameynaysaa biyaha inay ku degataa ma maqlaysaa bes markan waad ka badinaysaa ما قوها يدرس هذه يا قوركيga maqla dad sameeyo waa dhimanaysaa ku dhaw hadalkayga maqlaya بس relax استجي دقنان meeqay ku siisaa shidalka xataa diyaaraddu ka dhamaaday maxay dhahday saan kuu sheegay ninkan hadalkiisa ma fahmi kariyaan ku dhaw xulbo isku dhamaadeen saan macquul maahan هو لازم عبيد الطائرة بأقل من 100 ميل من هنا إذا ما ينجح ناس كثير بيموت ولكن ما عنده إلا وقود ليوصل هناك مدني ما سودي كران meel loo jirta 100 nautical mile inuu ku soo dago waay hadii kale dad badan ayaa ku dhaawacmayaan ama ku dhimanayaan intaas waxa sii dheer diyaaradda shidaal ma haysato waan ogahay dhibaato inay jirto awoowe wiilkaygii oo ku baryaa hadalkayga dhegayso axsaankaas la ii samee maanta isdaji adeer maanta dhimashayga ma hayso ee wakhtiga imisa iga harsan ii sheeg adeer yaad meeqa warta bal sheeg bal 5 daqiiqa wartay 5 daqiiqa haysataa beelo waqti aad u badan
ayaan haystaa mawduucaan bedelaynaa see tahay gabadhaada ayaa jecle maxaa dareemaysaa hadda kambanigeena caymis ma leeyahay adeer ii sheeg yaa noo qaabilsan ma laha maya caymis kambanigeenna oo waa iska dhisnayn macnaha maya waa ku baryaa sabab dhegaysta wiilkayga waa ku baryaa waa ku qaana waali ay rabtaa inaad samayso marka waa ku baryaa waxbaanaan samayn hadalkayga oo kala yeer markaan waa ku baryaa wow waa soo laabatay jaanti waa arrin fiican wiilkaygii dhegayso annaga waddo kale ayaan raadinaynaa marka waa ku baryaa adiga isku day inaa fahantid xal lama weynaayo anaa ku dhahayo wax walba wala xal 5 daqiiqadii qabata adeer 4 daqiiqa ay harsan aqashay walwalka iska dhaaf ficilan samaynaynaa 1 daqiiqa waa baxday action أصحاب عريا سببتو أكرمت هذا ماشي حالته عادي وحنت نقول مجوك إنه صباح شمالي صعد أوكي نبضة إصلاح دوا بحين أنا سعودية ولا هذيك المالكية هوسكي غاجية كرت ماشي وحنتها صعد مضل نبض به وعن حد إني نعان ما هي يا أخي ساسمي هاي نبض أريعو هليكوبتر تمرك ما الله انت هليكوبتر طالع بلا زاد دقيق وما يسسك مرحبا انت دتك امني جود هسوقاني بح هاي meeshan dabbi waxa laga sheegaa helicopter taabina halo mudane kana qof ayaa raba adig inuu kula hadlo sooda waa ku salaamay adeerkana hay lam filan ay kugu noqotay maxaa kugu dhacay laakiin qorshahaada qorshe wanaagsan ayuu ahaa in la qaatana waa lagu qasbaya qof qiimihiisa in ka badan haddii aad siiso aabbaha inuu yahay ayuu u malaynayaa ma garatay kana qorshahaada horta si markii loo fiiriyo wuu wanaagsanaa si fiicanaad u soo abaabushay laakiin aniga marnaba imuusan qancin horta kalsoonidaada in la qaato waa muhiim sababtoo ah dhimashada qarka u saaran haddana sii kibri ka war muga koowaad mahadsanid waa inay dhacdaa shirkadaad adiga qoysay rabtaan badbaadadeeda ku jira shirkadaadan badbaadinaya ka waran bog ii mahad celi shirkadeeda kana markaad badbaadinaysa ma naag baa boor yar ayaa dusha ka gaari waana ka jajafaya mar haddii aad rabto cirka inaad dab ka shido waa inaad leedahay awood iyo karti aad cirka ku fiirin karta kana haddaad diiddana waa ku baashaalinaa adoo ogeyn weliba
dhaqaaqa dhaqaaqa dhaqsada dhaqsada mararka qaar way dhacdaa adeerkanna way dhacdaa ha walwelin tanna hadan kugu talagala leyli काम हो गया. It's time to go.